الرحمن الرحيم مروين إيه مدنيال دمان داودياش شرفت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواده قيبتي لبعض برنامج كدين تأيي النرشة عن كقاعدة ديجيني فانك إيه سوغانتا إيو إسلام كوحة أو كقبو داوديال قيبتن عاوة وحن إسكولا قاعدة ديجي دونا حيراركا عن بقابك أو إسلامكو النظاميي fanka iyo suugaanta si ay u noqdaan kuwa wax ku ool ah oo nolosha dhiskeeda iyo horumarkeega iyo qiimaheega qayb fiican ka qaata iyo khatarta aw suugaanta iyo fanku ay bulshada gelin karaan haddii la waayo waxyaalo xeerar ah oo qurux badneeya waxa kale oo aan qaadaa dhigi doonaa heesaha islaamku siduu u arkaa waxaan u malaynayaa in fara badan ayaa si fiican u dhigraaricin doonta موضوعاس قيبت لبعض وحن كسو قادي دونا أو كله جبياغن عاوة مرتضى إيه إيو جبيجيسة أنت وكديجن يهي إيو وحيالا الرمهاس كسابسن إيه أقولاد الدعوة مجينا إن كسو دويو جبيا آدن حسن آدن وكم قعدر بللو كسو دوو بللو وحن جعلين قيبتي هرا وحن كجا هذا وحيالا آدية آدو فربضن xiriirka ka dhaxeeya fanka iyo suugaanta iyo islaamka iyo taariikhiyan xiriirkii labadooda soo dhaxmaray colaadan u dhaxaysa iyo waxyaalaha keenay iyo wixii ku saabsanaa waxaan jeclaan lahayn qaybtan labaad ee caawa aan hayno bal inaad nooga warantid islaamku waa maxay xeerarka uu u dhigay sidii fanka iyo suugaantu ay u noqon lahaayeen mid wax ku ool ah oo qiimo leh say u noqon lahaayeen bismillaahir rahmaanir rahiim horta diinta islaamku waxba ma haladaadin oo ma dayicin wax kastana waxay ugu tala gashay manhaj dhigan iyo nidaam sugan oo aanu xaqba ku halaabin xuquuqda fara badan tahay xaq ilaahay xaq adoomaha xaq nolosha lahayd iyo xaq taariikhda iyo diintu ay leedahay intaba inay dhowrsoonadaan goor walba waxyaalaha waxa kamid ah wax la yiraahdo كليات كإسلام كي واوين كليات كأسي إسلام كي واوين وحاكم ده دين تو لحفظه حفظ الدين نفته لحفظه عرضك شرفته مالك وحيالها سي كليات كأ مرنا بوا إننا وحليالي وأوبجكتيفية ده واوين وإسلام كو يمدين إنه إلاليو يعني وحوين الإسلام كو أهداف تيسوا وين وحاكم ده إنه نفط إلالي نفط بني آدم كإنه خطر جش معه أي نف أوردن يو تينت إن مرة إلاليو عقلك إلا إلاليو مالك إلا إلاليو عرتك شرفت هذا فنك أي فن كاسي أما هالنقطة مد قرآن ولا آخره أما مثل الدقيستو أما مثل التعوضه متكوتون هذا فنك سيدي سبع ضوابط أما سمارة تاني حرشة ka ilaalinaya inuu xadgudbo waxaan ku soo koobaynaa afar wato koobaad waa inuu amalkaasi fankihi oo ka hor imanaynin qaacido kamid ah qaacidooyinka islaamka xeer kamid ah xeerasha islaamka guud inuu ka hor imanayn inuu maaritaanay burburinaynin waxyaalaha iminka aan soo sheegayn inaanu hadidin waxaan sheegay yani waxaan uga jeedaa midalan inaanu fanku ku yeedhaynin colaad oo kale dad lagu gumaado oo nafafyaal lagu dilo inaanu fanku ku yeedhaynin maaragtaanay dhaqan xun iyo sino iyo wixii la mid ah qiyamka oo duma waa inaanu fanku yeedhin waxaan ku soo koobaynaa inaanu fanku ka hor imanin diinta islaamka arkaanteeda iyo maaragtaan ususkayga u yaala inaanu ka hor imanin taas waa koow intii ka hadhay oo dhan uu dhex dabaalan karaa fanku hadduu mar diinta ka hor imanaynin qawaacideeda talabaad oo markaa haddaan soo qaadana fanku mar walba haddii xataa balgabaygoo kale aadi maansaad qortay maansada waxay ka kooban tahay laba shay saddex shay bay ka kooban tahay guud ahaan waa marka koowaade dulucda fariimeed ay xambaarsan tahay maansadu bilicda farshaxanimo ay leedahay oo talabaada iyo ta saddexaad oo ah risaalada ay maaragtaanay taariikhda meesha ay ka gelayso fankii soo socday labinadaasi meesha ay galayso saddexdan in la ilaaliyo waxa ugu muhiimsan imaan ka soo hadalay waxay ahayd tii koowaad aan soo sheegay waxay ahayd in uuna mawduuca fankaasi ama amalkaasi xambaarsan yahay inuu islaamka warayso ma taas waxa weeyaan waa dulucdii
fariimeed ay xambaarsanayd inaan islaamka la dagaalamayn ama ayna ka hor imanayn talabaadna bilicda dhismaheega iyo qaabka oo ay u dhisan tahay camalka fankii uu dhisan yahay iyadna ahmiyad gaar u leeyahay waxa laga yaabaa waxa aad ka hadlaysay inuu wax iska sax yahay laakiin dariiqada uu qofku u gudanayo inay dariiqo wax ithaareynaysa wax kicinaysa waxaasina uu wax dhibato marka dambe keenaya tusaalana soo qaadana quraanka dumarka kale ilaahay waa kii ku oran jiray falaa taqdacna bilqawl fayatmaca alladii fii qalbihi marad waaya gabar baa halkan heesaysa wax sanoo fiican bay iyo iskaga haysaa waxay ku haysaa uu fiican yahay waaya laakiin haddii hadalkaa ilaahay uu yiri falaa taqdacna bilqawl hadalka ha jajabinina ragga ha isku macaaneynina ha isku dawacsiinina ha hor qaadina maarta dhararka ka daadinina waxyaalo waxa jirta gabadha markay samaysan ninku iska damcayo ilaahay wuxuu fayatmaca alladii fii qalbihi marad qofkii maarataana buka fiicnayn ee xumaan ka korba raadinayay wallahi billahi waa tay qoslaysa wallahi billahi way soo reegaysa way sanqanaysa waaya kolka aad halka ka ilaalisid heesti waa sax ma xumo kolka eegtid mawduuci ay ku saabsanayd laakiin adigu sidii aad u gudanaysay qaabkii aad u gudanaysay haddii uu yahay qaab khaldan xaaraan buu noqonayaa dee oo sax ma aha oo de mar haddii hadalkii caadigii naagta markay dukaanka ka iibsanayso markay baabuurka raacayso markay dadka caadiga la hadlayso mar haddii la yidhi hadalka jijibinin oo ragga aan guri gelinin iyadoo heestan waxaa malay ama wax kale oo dee fan aba oo ka koraba iska jilicsanaayo dabacsanaan iyo raqada haddii ay jadna kusii darto marka maxaan nidhi dulucdeedu inay maaragtaan islaamka hor imanayn habkeeda iyo qaabkii loo gudbinayna inuu maaragtaan xumayn ta saddexaad fan kasta iyo suugaan kasta oo maaragtaan la gudanayaay waa inaanay shay xaraama la xidhiidhin kolka shay xaraama inay la xidhiidhin laleeyahay waxa weeyaan tusaalayaal baan soo qaadi gabayga aad tirinaysid sheekada aad qoraysid sawirka aad bixinaysid masraxiyadda aad dhigaysaa مثلا meel khamri lagu cabayo khamri oo kale majlis khamri waa inaad ka sameeyo waxaaga majlis khamri la isugu yimid oo lagu sharaabay caaw adiguna kaale bileeyo noo gabay hadii lagu yiraahdo haddana khamriga ma cabayo gabay iska fiican oo aan ku gabayaa xumaan lahayn laakiin qolada maan hawsha kala qayb galaya oo gargaarayo halka ka sii haya ayaan leeyahay kolka waa inaanay cilaaq iqtiraan waa inaanu jirin Allah taqtarina bi shay muharram waxa raana inay la xiriirin dhinac kalena way kala xiriiri kartaa nin daaqiya ah oo ilaahay ka baqin oo adoomaha laaya oo ilaahay murtu nagida sidii fircoon kala inaad ugu gargaartid fankaas wada fankiisa iska xalaal laakiin dulmigaas aad ku gargaartid marka isaguna halka ka soo galay wax xaaraana inaanu la xiriirin xadiis bajri ibn maajah warinayo iyo qeyrkiiba oo nabigu عليه الصلاه والسلام la yashrabanna ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها دب عبي دون ومضى إذا كميدا خمر ذا مركز مقع كانوا بحين دونان سيئو عبانا وحراشدان مقع كانوا بحينيان يعزف على رؤوسهم بالمعازف قولك dadka ayako khamriga cabaya ayaa loo heesaya oo loo tumaya waaya والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير dadka ay dhulku la goyn doona qaar koodna waxa laga dhigi doona khanziir iyo daayar marka didaad inta laga dirta inta laga nabigu uu si bixinay digniinta waxay ku saabsan tahay fankii iyo xumaantii oo meel isku yimid adoo fanaana ama heesay ayaad meel khamr lagu cabayo maartaan kala qayb gashay inta saddexaad waxayna kala qayb fanku kala qayb yahay oo arinta kala siman yahay wax kasto mubaax ah waa inaanu israaf lahayn adigu fanaan baa tahay fanku ma aha sida hadda baan soo sheegay ma wax kasta ma hayso waa qayb nolosha kamid soo ma waa quruxdii idhadhasankii hadii lagu israafo lagu talax tago dhinaca qalshaad ayaa looga baxaya marka adigu fanaan baa tahay laakiin fankaasi waa inaanu wax israaf soo gelimanin de noloshuna saasi ku dhisan tahay inuu israaf jirin nabiga waa kiidala cunto marka cunaysiin calooshiina bal calooshiina ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس وعلاشي وكلي marka noloshaada waxyaalo kala farabadan baa jiray 24 saacadood waan heesi 24 saacadood waan gabiyo ma nolosha qaybi inba meesheedii ku toosi marka waxaan anu is oran karaa fanka imika uma kala qaadin fanki maan kala qaadin fanka guud ahaan afarta arrimood haddii maaragtaan lagu ilaaliyo oo ilaahay muurtuu nagidahay waa ta koobaad ee aan soo ku soo hir celiyay dhaqankii diintii inaan ka hor imanin dadku lahaay fiicnaa
sida loo gudanaya inay noqoto si qurux badan oo iyadna aan wax kicinaynin xumaan kicinayn sida saddexaad waa in maaragtay wax xaraan oo kale aanu ku darsamin ta afraadna in maaragtay israaf aan la sameeynin taa miyaanan la oran karin oo nimankii fanka iyo suugaanta ka shaqaynayay waxaa laga yaabaa in ay arintaas ay hor joogsato kobcidii uu kobcayay fanku horumarkiisii iyo quruxdiisii oo haddii meesha la keenayba xeerarkan meesha waxay ka dhigan tahay waa lala dagaalamayaa oo dagaalkii aan ka soo warranay habeenkii hore ama qaybtii hore barnaamijka miyuunan ahayn mid meesha soo galaya wallahi ma malaynaya inay soo galayso waayo habeenkii hore waxaan ku odhani jiray dadku si khalad u fahmaan quyuud wax la dhaho iyo si khalad loo fahmaaba adduunyadan si aanay iskugu farxalinin oo la isku leeynin oo la isku cunin oo la isku dulmiyin xeerar baa la dhigtaa xeerarkaasi dulmi maaha qofna ma dulmiyayaan laakiin qofku sidii ay odhan jireen ninkii Montesquieu iyo John Locke iyo Hobbes iyo ragga siyaasadda iyo falsafada maaragtay dhigi jiray waxay ku leeyihiin maamulku mujtamaca ayaa xuquuqdiisii badh intuu ka tanaasulo ayuu ninka madaxweynaha u dhiibanayaa adaan ku dhiibnay xoogayga awoodeedii laakiin xoogay awoodda aan u dhiibay waxaan ku ilaashanayaa intii kale hadhay xurriyadii intii kale ay hadhay ayaan ku ilaashanayaa adaa eegay oo ka mas'uula way haddaba xeerashaasi haddii loo arko balka hor dulmi iyo qofkii maaragtay noloshiisii inay hortaagayso isma hortaagayso nolosha way islaamku uu yimiday noloshii fanka oo kale hata maaha fanku waa qariiso waxaan ka qariisada wax qof ku mudan oo ilaahay ku abuuray gaajada waa maxay waa qariiso amaana keena may ilaah ba keena gaajadaasi marka waxa loogu talagalay inuu cuno seexadku waa qariiso in la nastaal keenay galmoodka iyo ragga iyo dumarka cilaaqada ka dhaxaysay waa qariiso qofka ku beeran laakiin ilaah ba keenay ilaahay marka waxaasi oo dhan xeerar buu dejiyay ragga dumarka waxa la yiri iskuma fasaxanidinay xaraan bad kala tihiin ilaa isguursanaysiin oo soo maraysiin maartan processka aad soo maraysiin waxa la yiri qof ko wax kasta inaad cunto kuma xalaal ah sida waad cuni kartaa waxba ka xaraan riba ka xaraan waxba ka xaraan la shiri defankuna waa qariis qofka ku abuura qariisaduna dambi ma laha dambina ma aha in qariisada qofku guto laakiin waxa looga baahan yahay sidii ay diintu u nidaamisay qariisadaasi in la ilaaliyo la soo maro way fanku marka wuxuu kamid yahay baahiyaasha kale ee bini aadamku uu leeyahay ee cuntada seexadka galmoodka inuu fan maaragtaan samaysto waxay kamid tahay waxyaalahaasi oo dhan xeerasha loo dejiyana maaha marna ma xirxirayaan ee fanaaniintu waa inay uga fikiraan sidee ula fangali karaan diintooda iyagoona wax yeelayna ay wax u samayn karaan weligeeda diintu way soo jirayso fanaaniintuna fankuna uu soo jirayo maalinna iskamay hor imanin haddaan la sameeyeen dagaal la abuuranayo unahayn ama cid kale aan ku jirin ma iman dagaal waa tahay waxaan soo tilmaantay arrimo loo baahan yahay qofkan fanka iyo suugaanta ka shaqaynay in uu ilaaliyo si ay suugaantii u noqoto mid ka qayb gasha dhiska bulshada iyo wanaageega iyo qiimaheega waxaan soo tilmaamnay qaybtii hore ee barnaamijkan in uu looltan weyne u dhaxeeyo nimankii culamaa u diin ee diinta ee ka shaqaynayay ee ku xeel dheeraa iyo nimankii fanka iyo suugaanta ka shaqaynayay bal waxaan jeclaan lahayn inaad in yar nooga wanid fankan iyo suugaantan haddii la ilaalini waayo xeerarkii weynaa ee aad soo tilmaamtay ee ku soo ururayay inaa sidii islaamka u dhaqmi jiray uunan ka bixin uunan ka hor iman haddii arintaa la ilaalini waayo khatarta fanka iyo suugaantu ay bulshada ay gelin karaan warta axmed oo maasantay tani ku saabsan culumada iyo fanaaniinta mar labaad waxaan ku celinaya dagaal ma dhaxeeyo waxaan leeyahay culumada iyo fanaaniinta labaduba dowr muhiim ah ayay ka ciyaarayaan horumarka bulsheed ee meel kasta joogta bulsho kasta yaani maaha teenanuun culummo kasta oo meel kasta joogta iyo fanaaniin kasta oo meel kasta joogta nolosha kama maarmayso waxyaalahan in la isku dhafo oo isbarbar galaan oo istaageersadaan oo nin walba dowrkiisa uu guto oo bulshada mas'uuliyadiisa uu xambaaray ayaa ahayd oo ay saaxiibtinimo ka dhaxayso yani waxa weeyaan ninka fanaankiihi inuu wixiisa ula soo noqdo anu waxaan ka sheekasanahay war maxaan culimada u macnaananaynaa tii fanaan diin u baahan hadii uu jiro caalimka oo imanayo sheekhaana waxa sameeyay ilaahay bal ka warrano say ilaahay oo jecel ka qabta diintiisa hadii uu jiro anu waxaan u maleynaa isma diidayo waayo mushkilad ba maartaan ay abuuranteen ba hadii uu isjiro maartaan istaageersi laakiin dhawaataan waxay ka dhalatay
labadii qolo oo maarata nin walba uu iskii uun iskaga socdo fanaankii u baahnaynba diintiisa balixjal ka warta sheekhu ma isaga diinta leh diinta adaale ilaahay baa ku siiyey adiga sheekhu ilaahay baa u simantihiin waxay ahayd uu diintu ka yaqaanay sheekhow waxaan samaynayaa diinta miyuu ku khaldan yahay mise kuma khaldano inuu kuu sheego isaguna inuu fankaagaasi sidoo uga qaybgeli lahaa u tootoosin lahaa waa wax la qorayo oo la hagaajinayo la soobinayo si leebkaasi meesha ugu dhaco waa in qalqalooca laga ilaaliyo fankana waa in la qoro oo ninka fanaanka iyo ninka caalimka ee diinta yaqaaniba ay maanta isla shaqeeyaan diin ahaan haddaan idhaahno haddii laga tego qodobadii haddeeran soo sheegay oo uu fankii noqdo fan maaragtaane cidlo u baxay oo fan maa iska wadaa uun dee fanka aan bulshadan ka soo dhex bixin ee maaragtana diintan ka soo dhex bixin ummadda ma yeelanayso culun baa lahaan waxaanu imanayaa fankuna niyo dadku saano eegaynan waa aad baan ula yaabanahay fanku waa wasiilo culummada islaamku waxay yidhaahdeen wasaaishu waxay leeyihiin xukunka maqaasida الوسائل لها حكم المقاصد وسيله ومويان محان ابسم الله كرنا هذا كل غياءه wax la adeegsanayo oo lagu gaarayo wax maarataana qasdi aad lahayd hadaf aad lahayd ujeedad lahayd meel dulucdaad ku socotay wixii aad u sii raacaysay u sii fuulay gaadiid oo kale aad ku gaaraysay weeyaan adiga marka fanka aad maarata risaalad gudbinaysaa iyadoo marka fankana aad maaratan ku dhex jirtay ujeedad ma fan uma jeedo ma fan uma jeeda mise fanka inaan adeegsado oon wax ku gaaro ummadda ku hagaajiyo ugu adeego cadawga ka difaaco ilaahay muurtuna ku soo barbaariyo qiimka ku baro runta iyo wixii fiican iyo jihaadka iyo nolosha shaqada ku baro laakiin badanka intiina badan anigu kulay fanaan ma iyo aad ma garanayo badan waxay ka waramaan markan la wareysanayo fanaaniin fara badan in uu caan noqdo inuu doonayo amba inuu xoolo helo inuu doonayo amba inuu waxyaalo caynkaas un baad inta badan daba orodin ma way iska jirtaa way jirtaa adarban ka khariyo halkan balwadi barano ku baas noqonay bakshish miyaan ka helaynaa hadal sidaas ay ku jirtaa bakshiishna ma ka helaynaa way jiraan dadku deemaartaan isku ujeedooyin ma laakiin ujeedada sare ee kulli fanka laga leeyahay oo de maartaan waxana ka masuula qofka iyo bulshada iyo waxna ma ka masuula in la tawjiihiyo khadka saxda ah la tusoo laga dhiga fankan wuxuu adeegaya dalkan dadka ku nool diinta wax u adeegaya laga dhigo way sameeyaan dawladuhu yani imika waxaan ku sheegay in kastoo den fanka Mareykanka ma jeceli laakiin fanka Mareykanka oo kale Mareykanka dawladda Mareykanka waxay wadatay wax la dhaho imika bayna ku ogaanay globalization la yiraahdo ama cawlama la yiraahdo adduunka in laga dhigo waxa la yiraahdo adduun edegeyn adduunyadii in edeg yar lagu xeero oo halkaaba lagu nool yahay dhaqankayga ninka adag baa sareeya dhaqankayga wadayaasha sanad u noolaada sheeka sidaas socota sheekaas waxa bilaabantay in kulku soo dhamaanay dagaalkii qabooba ayay soo bilaabantay bay ahayd 96 oo markii ugu xooga badneed maartaan globalization ka adduunyada in maartaan ay horta fikrada la soo tuuro oo dadka la aqbalsiyo waxaan xasuusanayaa hees waxa ka soo baxday Mareykanka siyaasadda dawladda ay wadato ayay xambaarsan tahay laakiin waa jacayl hees jacayl iyadoo la socota marka waxaan kaaga wadaa dawladda iyo Hollywood iyo sida ay wax oo dhan iskula socdaan iyo ciidanka Pentagon-ka iyo wax oo dhan insijaan baa ka dhaxeeya way isku dhafan yihiin sida hadaf kale ay wada wataan nin walba isbigiisu u shaqeynaya heesaas waxa yani ka sii xasuusanahay as long as you love me I don't care who you are where are you from what you do oo lagu celinayo si qurux badan baa loo qaadayo marka dhageysato aad u qurux badan tahay laakiin ninku garaad leh marka uu fiirsado macnaheeda waxa arkaysaa war waaba wixii ay wadaan siyaasiyiintu bay kuwana ku heesayaan waxaan gabadhu waxa wiilku wuxuu leeyahay maadaama aniga aan jeceshahay waxba igama gelin cid baa tahay meeshaad ka imatay waxaad ka shaqaysid I don't care waxba igama gelin laakiin waxa muhiim kaliya inaad jecelahay mondialisation وجعلكي بالله marka waa la masaxay xuduudii wadananimo maartaan mujtamacaadku waxyaalaha ay lahaayeen ee qiimka ay u gaarka ah waa la masaxay waxaan masaxnay way wasjacalay kaliya saakartama marka waa hawshii halka ka socotay in adduunka maartaan la deeqsiyo marka waxaan ka wadaa war dagaal kama dhaxeeyo labadan kooxood ee wada shaqeyn garan lahayn wadaadada iyo fanaaniintu wada shaqeyn garan lahayn fanaaniintina aan ka helno baahi diineed inay diinta u baahan yihiin
oo dee diintu waxay xabaarsantahay dhaqanka ummadaysi daayeen ummadoodu bay ka mid noqon doonaan culummadana waxaan ka rabnaa colaada iyo maaragtaan huruufka ay huruufayaan fanaaniinta inay ka daayaan waa caruurtoodii waa dadkoogii hawsha hayaan howl lamida bulshada u hayaan inay maaragtaan soo dhaweeyaan waxay ku beerin karayaan ku beeriyaan inay iyagu culummada fanaaniin noqdaan ya fanaaniintuna culummo noqotay diinta barato saasa maaragtaan sax ah khatarta uu keenaya fankaas haddii ka baxo su-aasheeda ma soo noqonayaa haddii uu fankii intuu ka dhex baxo bulshadii iyo diintii iyo wixii la sheegaya war adeero ina daaya ciisa bidiin muusa bidiin halka ayagaasanu iskaga heesaynaa dhulka ayagaasanu iskaga ciyaaraynaa dee culummo masaajidiinni ini daynay annaguna noo daaya meelahaas hadday sheekadu sidaasi nocoto horta waxaa dhacaya dadkaasi inay xadhkaha goostaan oo lasoo qaban kari waayo waxaanad ku arkaysaa dadkaasi inay xadhkaha goostaan oo lasoo qaban kari waayo fanaankii waxaad arkaysaa ummadda wax alle wuxuu la wadaagoba aanay jirin waxma wadaagaanba ummadda dhaqankiisa siduu u dhaqanyahay siduu u hadlayo siduu u fikirayo wuxuu isagu hiigsanaya maaragtay niman kale oo meelo kale jooga oo sidoo inuu noqdo doonaya fankiina wuxuu arkaya maaragtay inuu fan gaabisa yahay bal waxba naga dhaadhiciyaba yani waxaynu inuu folklore yahay fan dhaqmeed ayaa yidhi fankayagu waa fan dhaqmeed oo fanka yurub muxuu noqonayaa fan dhaqmeed kan anagoo diinay daaskiin fan dhaqmeedku waa maxay belilo fan dhaqmeedku waxa weeyaan hadda waxay noo sawiraan iminka waan welwelan ciyaarnaa soo maaha def baan tumanaa waxaan oo dhan waxay u arkayaan iyaku inuu yahay wax fan dhaqmeed ah aniga waxaan arkaya bulsho kasti nolosheeda iyo taariikhdeeda ayuu ka soo samaysmaa fanku taariikhdeedii taariikh nololeedkeygii diinteedii qiyamka ay rumaysnayd ayay ummaddu fanka uga samaysmaa fankaasi wuxuu noqonayaa sida bini aadanka ilaahay ka kora u talagalay intaasoo qaarada inuu kala beero kala midab duwanaado kala af duwanaado kala diino duwanaado waxaa lagu talagalay inay kala fanan duwanaadaan saasuu ku qurux badnaanayaa fuleer sidaa u eg waa fuleer fankani fanka kalena waa fuleer kaloo cas ku kaloo cad saasuu ku qurux badnaanaya laakiin haddii la doono fanka ka imanaya reer galbeedka in la wada hiigsado oo kaas inta la gaarsiinaya fankeenna waa dib u socod haddii la aamino waxay ka dhantay keenina wuxuu noqonayaa folkloorkaasi fan dhaqameedkaas u ahaanaya koogaasina waa kaan ku soconay hiigsanayno inaan ku socon gaarnaa tani inaad dib ugu soo yaro noqotid waxaad tilmaantay haddii labadoodii ay isla shaqayni waayaan inay bulshadii noqonayso mid dhaawacan oo qofkii warta dhaawacma iskii baxaya qofkii warta baxay talabada waxa ku dhacaysa bulshadii waxay noqonaysaa iminka adaan ku kala jeexay axmed laba lagu kala jeexo ilaahay nagama yeelay ana laba jeexo oo qayb adiga kamida lagu rakiyo bal wajigeedaasoo qaybna adiga tahay qaybna aniga tahay waxay ka dhigan tahay marka fankeenii qolkan ummado kale fankooda wax ka soo raray ninkayga ku rakibeyno wuxuu noqonaya wax ragcadaysan oon isku maaragtaan daily tirnayn ayuu noqonayaa haddaba qofka fanaankii marka uu dhaqankiisii ummaddiisii diintiisii ka yar durkay ummad kale wax ka soo qaatay wixiisa ma qurux badnaanayo bulshaduna ma yeelayso ma soo dhaweynayso bulshaduna baske ma arkayso sawir qurux badan oo qaadato nafteediina kama dhex arkayso waxaa kaloo ku dhacaya fankeenni inaan horumarin kari weyno fankeenna waa inaan ku horumarino wax annaku aan nahay waana ku horumarina laakiin waxa cid kale tahay kuma horumarin karayno fankeennu waa inuu dhaqankeena la horumaro waa inuu dadkeena la horumaro waa inuu dalkeena la horumaro laakiin wax cid kale noo yeedhis lama horumari karayo marka khatartaas mujtamacii oo maaragtaan kala go'ayo oo sawir foolxun yeelanaya fanaankii qudhiisii oo maaragtaan ka go'aya ummadda iyo fashal ku dhacaya fankii qudhiisii oo meel gaaranay qiyamkii xadaariga ahaa ee ummaddu ay lahayd oo ku dhex halaabaya oo waa fashalka aan sheegnay ee fankii inuuna kuna soconaynin markaas waxaa jiray belilo heesaha waa qayb weyn ayay ka ciyaartaa fanka iyo suugaanta nimanka heesaana waa kuwa u caansan qayb weyn nolosha kaga jira islaamku siduu u arkaa heestaa dee 150 arrimood loo soo diyaariyay haddaad fanaaniin tihiin yaa mid sidan iyo mid la afuufayo 150 kashi aad u soo qaadateen arrintaanta siduu arkaa arrintan heesaha iyo wixii la socda oo dhan wallahi horta arrinta khatarteeda leedahay in malaa la dilaa doonaysaa hees marka la yiraahdo fankeenna waxa ugu weyn ee ka dhex muuqday waa hees yani bulshada aan hayno sawirada aad ugu maxeedheerayso ilaahay baa umuurta u nagidahay sheekooyinka sida loo qoro kuma fiicnin oo bulshadeennu waxay dhaqankeedu ahaa dhaqan wax dhegeysi waxa la yiraahdo oo la soo dhegeysto iyo badnaa marka gabay iyo hees baa ugu badan fankeenna ugu badan heesta markaan u imaado
dee raggaa hees anu ma heesee mala hadda waan heesi kari lahaa haddaan isku dayaba ma heesa laakiin dadka heesaay dee gabayga may naga qaataan iyaga unbaba ku caan noqde anagu gabaygeegay iyagaa ku caan baxa oo horta saa sheegaysa fanaanka heesayaay waa nin aad iyo aad maaratan u qiimo leh codkiisuna maarataanay waa run ahaantii waa wax loo baahan yahay oo gabayga un la qurux gabaygan aan qoray iyo fanaanku heesay waa isku qiimo weeyaan codkiisa aad iyo aad u qiimo badan laakiin markaan ka hadlaynay hees waxa la yiraahdaa diinta maxay ka qabtaa diinta maxay ka qabtaa anu horta waa xaaraantinimeynaya waxba xaaraan iyo waxba xalaal mid oran maayo xaaraanta iyo xalaasha ilaahay baa iskale ilaahay baa xaaraantinimeeya waxna xalaaleeya laakiin waxaan sheegayaa waxa jirta waxa la yiraahdo qaacida القواعد الكبرى waxa kamid ah qaacidooyinka waaweyn ee islaamku leeyahay al-aslu fil ashyaa al-ibaaha asal ahaan wax kasto adduunkan yaalay waa xalaal haduuna nas xaaraantinimeeya jirin balad oo fiirso diinta islaamku waxay qabtaa wax kasto ilaahay adduunka keenay inuu xalaal yahay haddaanu jirin nas xaaraantinimeeya nas kalkan leenahay ama aayad quraan ama xadiis ama ijmaac baa soo raaca qolka ilaahay baa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamii'an waxa dhulka yaalo oo dhan baa ilaahay baa idin abuuray fanka yeesuna waxa bay kamid yihiin way maadaama waxa kamid yihiin maxaa wax lagu xaaraantinimeeya laba shay wax lagu xaaraantinimeeya nas oo marka nas kaleenahay naskaas ama aayad quraan ama xadiis nabi naskaas laba shay waa inuu lahaado وإنه هذا صحيح وإنه هذا صريح لا باس فيه آياتنا هذا ديسك كينتي وجهي جي سارت كما يلي waxa la naskani horta waxaan eeg ma saxiix ba oo mid ku jiro sax ma yahay aayad sax iyo xadiis sax ma yahay aayadaha quraanka sidoo quraanka iyo sax ma baahno iyo xadiis sax ma yahay mise sax ma qolku sax noqdo haddana sariix ma yahay ilaa sariix marka la ma cad yahay xukunku ma ku cad yahay diintu wax ma madmadoobayso in al-halal bayin wa in al-haram bayin حلاشن إلى وعدي حرانتن إلى وعدي إحنا نقدمتين مدن فقه ورجلنا قطعي الثبوت قطعي الدلالة هواك قطعي صدق يعني وهذا صريح وأنا صحيح هذا والثبوت كيسيبا قان حق إلهي حق النبي سنو كسبنا علي دليل نبي سنو يعدها ومدمدك بجرو هذا الله معنا يالن كرايو ما حرانتن من كرايو هذا حديث كاس الله معنا ياش لو رنكر والله سنة ونقون كرا لأن بميل بكرة به ها كميشين هذا waxbay naga xaaraantinimeeyay hadda saad noo qaadana noqon marka wax la xaaraantinimeeyo nasba wax lagu xaaraantinimeeyaa haday soo dhaafto waxa jirta ijmaac oo culimada islaamku ay tiraahdo waxaasi qaacida min qawaacid islaamku ka imanaya waa xaaraan lagu ijmaaco oo ijmaacaasna waa inuu hado thaabit wa mutayaqan laba sifo waa israac miya culimadii isku raacday israac inaan mitee culimadii isku raacday inuu sheegaasi xaaraan yahay iyagoo ka eegay dhinacyo fara badan oo yiri wuxuu ka imanaa dhinaca daliil kuma soo aroorin laakiin daliil kale oo yimid ka hor imanaya marka waa xaaraan laakiin ijmaacana waxa loo shardaa inuu thaabit yahay mutayaqan yahay inuu sugan yahay oo ijmaacaas wax jira yahay iyo in la hubo inuu ijmaac yahay gudaroolay inuu lahayn marka baabkii wax xaaraantinimeynta saasan u ceeriyo horta hadii waxaan la xaaraantinimeyn lahaa heesii markaana imano culimada islaamku waa isku khilaafay horeetiya dameetaba war horta in la heesa xaaraan ma tahay xalaal ma ragu xeeleen war horta wax hees la yiraahdaa ama raga ku heesa ama dumar ku heesa ama loo garaaco gitaar iyo maartana piano ama laga reebo war wax hees la waa xaaraan wuxuu dumar baleeyahay miisaan baa duulay waa xaaraan tee mashkilad baa dhacday waxa mashkilad ku dhacaysa ilaahay wuxuu bini aadanka ku abuuray ku dhex abuuray dareenka miisaanka dhan baa raaxa inuu qofku hadalka miisaaman iyo birtii miisaaman iyo codka qurux badan leh inuu ku raadeysmo say doontaa noqotay ragga waxay waxaas waa xaaraan halkaas kaga bixi ragga waxay leeyihiin waxa xaaraanahu in naaga heesto waa xaaraan waayo codkayga xaaraan aba bay ku leeyihiin codkayga waa cawro marka inaad soo xaaraan waxay yiraahdeen qaar kale meena waxa xaaraanahu wixii music leh haddii saanu la iska heego helaloy waxa la wax inoo dhib yeelasay jirto kale waxay yiraahdeen war wax xaaraan ma jiraan waa xalaal heeso music loo garaacay loo ma garaacina naag heesta nin ku heesyaaba heestu waa xalaal bishart wax shardi kale aad u beelado inuu yahay kelima tayiba balado kelmad wanaagsan inuu yahay alkalimatu tayiba sadaqa samay kelmad wanaagsan inuu yahay inaanu fisqi hadda qawaacida ku sheegay dawaabidii inaanu waxan ku yeeraynin dad isku diraynin wax falxun sifeynaynin wax saas
waa daliiladii markaa yar xgalay laakiin halka intaana daliilka dhexin waxa laga yaabaa inaad leedahay qaybta dambe iyagu waxay xaaraantinimeeyeen waxay madmuunkii amba wixii uu xambaarsanaa iyo qaabkii waxa bay eegayaan qaabkii eegan wuxuu heestan ku saabsan tahay haddii hees wanaagsan tahay nina ku hees kartaa gitaar wax kasta oo lagu tumi karaa bay leeyihiin ragna waxay may muu hees bay inaga daayay ragna waxay marmaan gitaar in lagu tumi lagu hees halka bal kala jooga marka culumadii laba maalmo ka kala saari kuwii xaaraantiniminay iyo kuwii xalaal u arkayay marka arrintii maadaama la isku khilaafana xorbaatay ma la socota horta qolada waxa xaaraantiniminaysa aayad quraan soo daliishadaan la rabo min annaasi man yashtari lahwa alhadithi la yudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidha huzuwan waxa la leeyahay ibn Abbas iyo ibn Mas'ud iyo rag fara badan taabiciinta kamida ayaa waxay ku macneeyeen aayadda tani dadka waxa kamida lahwa alhadith dadku dad iibsanaya si ay uga hadlayaan dadka jidka Ilaahay oo daldal uga dhigtaan waxay sheegay waa heesaha looga jeedaa ibn Abbas ibn Mas'ud yiraahdeen marka culumadan aaminsan heeso xaraan waxay leeyihiin ibn Mas'ud iyo ibn Abbas mar haday yiraahdeen wax waa hees Ilaahayna uu xaaraantinimeeyay waxa lagu falay halka ka tuur ibn Hazm وعالم وين ومارت أنا خطرة وقضيتنا مارت أنا طرف وين كوحولي وررتها مرة داروا النبي يقولني آياتنا أنا كو عدين مقع هسه أنا كو عدين ابن مسعود ابن عباس حجة من نقون كران وحارات النماس وطلع هذا إياك أصحابك اللي جوكتي وارنتنا خلاف سن رأيكم كو خلاف سن باللي جوكت الله نولد كمان قصبنين دي رأيكم بيش كشكته سيلاهي تصدحات آيات النص كي أيها هذا الكمبورينية oo aayada markuu Ilaahay ku soo sheegay in qolo lahawga iibsanayso oo ay jirto wuxuu laba sababood uu sheegay in dadkaas dadka inay haleeyaan ugu tala galeen iyo in aayadka Ilaahay ku dheelayaan waxay soo qaado kitaab haddii maanta imika soo iibsado kitaab quraan oo Ilaahay oo ugu tala galay dad inay diinta kaga saaro isaga kitaab quraan soo inaan iibsado xaraan noqon maayo oo kitaab quraan la soo ma heesin la soo waxay leeyihiin masjidkii masjid ad-dirar waa masjid la soo hadana waa ka nin baa wuxuu tujin